mar walba waxay dhihi jirtay sidaad adiga tahay ayaad farxad ku helaysaa anigana hooyaday waan rumaysnaa ayadana aad ayay ii jecleed anigana sidoo kale waan jeclaa laga yaabaa dareen gudaha ku qarsoon qof markii alla wadaagtana bannaanka u soo baxa waqtigan waa midka ugu quruxda badan ee noloshaada aad qaadato farxadaha qaar waxay ku qarsoon yihiin cayaaraha iska yar markii aad qof la wadaagtana way ballaaranaysaa laga yaabaa lama filaan aad ubadkaaga u samayso farxaddiisa inay ku jirto farxaddaasna uusan weligiis ilooweynin aniga mid makuu sheegaana farxaddayda waxay ku qarsoon tahay farxadda hooyadee waxay ahaataba dunidan waxaa sax ah inaad dunidaada adiga dhisatid oo hooyadaas iyo gabadheeda nolosha farxadda ay ku noolaayeen waa mid intay indhahooda ka soo bidhaantay sida iftiinkoo kale loo arki jiray sida anigii gabadheedoo kale markii ay duuleyso waxay dhihi jirta hoos fiiri markay hoos fiirisana waxay arki jirtay geedkii oo weynaay asagoo yariis ah markaas kadibna waa shimise waxayna ku dhahday geedka marka aad kor ka arkaysid sidaan ayuu u yaryahay sheekadaanna waxaad ka ogaan kartaa farxadaada inaad adiga samaysan kartid aniga waxay igaysaa mataqaanaa inaan iska buuba ka waranhay hooyo waayaa gabadheeda ka soo qaad haddaba baala inaan leedahay haddii aad baalan lahaan lahayd waa ku duuli lahaa ka waranhay hooyo oo ani ariga keliya aan ahay haye maxaad ku samayn lahayd markaas meeshaas tartiimaa ku yaalo beerana waa ku yaalaan aadna waa qurux badanta markaas kadibna jabiyaa ku qaadanaynaa adigana micloonays mana ooneeshid gabadheeda maxaad sidaas u dhahaysaana maxaa yeele markaa hurdaay oo soo kaca agtayda waa kaa waayo hooy markii aan ku soo raariyana waxaa arkay anigoo ooneeshid maaho hooy ii sheeg yaa waay qofka adiga kaa murjiyaayo ii sheeg hooy aabhee miya aabhee hadda maba kaa murji karo bashaama sababtoo ah wuu dhintay yaa waay marka qofka kaloo adiga kaa murjinaayo gabadheeda murug ma aha hooyada way daashay aniga daalka oo keliya waa mooye wax murugaya ma hayso hooy waay haddii hawsha kaa barato aniga ishaeg waa ku caawinayaa yaa arrin ma oynaysid marba haddii aan adiga ku haysta gabadheedii buur xitaa haddii dusha laigu xiro waan qaadayaa maxaa yeele waxaaba igu filan mataqaanaa intaan adiga ku haysto haye waxaan ku dhihi jiray maxay ahaayeenna aniga adiga qalbiga ayaan ka midaysannahay gabadheeda ani adig qalbiga ayaan ka midaysannahay mar walba jaceylkayga quruxdeeda nolosheeda gabadheeda aadan kuu jeclaa ninkan hadda waan seexanaynaa beri interviewgaana sugaayo kaala gabadheeda si shimbirtoo kale u soo duul baraawo nabad bala keenaya okiyaalka kadibna seexaya naga daa gabadheeda dadka ay
waa waree wayna soo ogaadeen bas waa waynoo dhammaatay. Neva. Oradaya xageed orad ku gaaraysaa ma waxaad kula noqotay inaanan ku soo gaarin. fiir hadeertan meeshaan adiga waxaan hore aniga kuu dhahay tik tak tik tak. وسؤال سمويه يوم بحث كريست قابا وحكوه شرح ما بقرنا نينكاغا لعقتان كلها قدك أيوب لا هذه السماء لعقتان نينكاغا كلها هدي كتب أذان كهرباء أذان يقول متأفرتني 6 ساعة يوم كسينة بس جيران كل شيء 48 ساعة إسكداي أنت نولشة كده من حتى ما بيحين كرو أنا waxaan ku siiyay 48 saacadood oo kaliya lacagteeda saacada sidaadii u keeni weydo dhibkaadu ku yaala muddadan ku siiyay waa 48 saacadood xusuusna waqtigaagana hadda ayuu bilowday haye wuu bilowday tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. haye waqtigaaga wuu dhammaaday marwa Neva. Neva. gabadheeda ma xasuusataa sheekada ugaarsatada kuu sheegaayo waaye sheekadaas yaa guulaystayna boqoradii iyo gabadheeda ahayna keenaya gabadheeda boqoradii gabadheeda aniga soo maaha okeyga Neva. waan ku imid Neva. hadda waxaa loo baahan yahay boqoradii meelaysan cidna ka arkaynin in ay ku dhowntaan haydhe waayahay nabad tartiib gabadheeda hooyo boombilahayga soo iloowe way baxsadeen miyaana gabadheeda nakeen gabadheeda soo orod dhaqso soo carar gabadheeda waa ku bar
dhaqso gabadheeda soco gabadheeda aniga hadalkayga si fiican u dhegeysa dadkan ciyaar ayaan la ciyaaraynaa adiga meeshan ayaad ku dhuumanaysaa anigana ayaga ayaan qayaanayaa gabadheeda waan ku baryaa meeshaada ha ka soo bixna haddii kale geemka waa naga guuleysanaya watay gabadheeda kaala gabadheeda macaanta badneeda waa fiicantaa somaa gabadheeda hooy ciyaarta hadda waa ku guulaysana maaho anagaa guulaysanay hooy hadda xagga aadaynaa annaka ii sheeg gabadheeda quruxda badneed hadda waan baxaynaa magaalo kale iyo qasri kale ayaan anaga degaynaa waayahay macaantadeeda adiga nasiibkayga ayaaba tahay halo waan ku maqlaa maxaa dhahde ahay cashada kadib miyaana waayahay haddii ay muhiim tahay dhibaato ma laha ahay maalinta ku wacnaato ahay gabadheeda qurux badneed oo soo kacsa maaha ahay subax wanaagsan wax la mid ah hooyo ma gaajaysan tahay weliba sida waraabihii oo kale ahay fiire gabadheeda anigana waxaan kuu keenay ahay makeeshe hooyo ahay hooy mala socotaana marka aan hurdaayay aniga waan riyoonaayay riyo xun aan arkay maxaa ku riyootayna waxaa ku riyooday ninkii xumayne oo anaga na barsanaayo kadib arine markaas meelaa igu qarisa waxaana idhahday waa kuu soo laabanaya laakiinse sidaa kuu sugaayo ari maba iisoo laabanin hooyo waa kuwaayo ka waran gabadheeda macaanka badneed kuma cidleenaayo wax kasta ayay tahay lagama yaabo inaan ku cidleeyo sidoo kale adiba wax kasta ii tahay gabadheeda quruxda badneed nakeen isdiyaari soo bax laakiin hooyo xaggee aadeenaane suldaamadeeda interview ayaan leenahay haddana waan dhaqaaqaynaa gisho iskale gisho ahay nabadaya hadda waan bixinaa dhaqso gisho borsada
كان عندك سوديب أو بلا بيل macaan badan quraac ayaan ku diyaariyey inaad diyaariso lama baahnayn quraac ma baahni maxaa dhacayna kafeega adigoo baahan miyaad cabaysaa dad caafimaadkaaga ayay u daran tahay laakiin xabiib waan ku cabsanayaa ha ii walwalin aniga yarmihii waan iska adkaa xabiibi adiga wax badanaad shaqaynaysa soo maaha xabiibi inaan kaa taxadaro soo maahan ilaa noloshaada aniga ayaa ku jiray xitaa haddii aad ilowdo taas waajib ayaa iga saaran maxaad ula jeedaa laakiin adiga inta badan waa iska mashquulsanta oo waad ii ilowdaa waan ogahay intan inay dhibaato badan tahay balse waa inaan u dulqaadanaa anaga ma ogtahayna xabiibi dhar aad u shidan inaan diyaarsado dadka marka ilaa heerkaas inaad diyaariso looma baahneenba maxaa dhacay macquul miyaan waad ogtahay aniga goobtaan ayaan leeyahay weliba caawa habeen muhiim ayay tahay sababtoo familkaaga ayaan la kulmayaa waan xiiseynayaa inaan arko dadkana hooyada waxyaabo badan ka sheegayeen moogtahay maxaa hooyadii laga sheegaya maya macana wax xun ma laga sheegaynin micnaha dadka waxay dhahayeen marwa turkaan aaday u adag tahay in la soo jiidana ma fududa tamaam hadda way caddahay sababta caawa ay qaasato runtaa waxay tahay hooyo turkaan xayndaabkeeda in la gaynay aad u adag tahay qalbigeeda iyo gurigeeda cidna uma ogolaato laakiin taas inay ka rusho lama baahnaba sababtoo aan lama kulmaysid adiga maxaad u jeedaa adiga maxaa dhacay familkaaga iyo asxaabtaada inay bartamaratid miya maxaan xiriirkeena u qarinaynaa annaga horaan kugu sheegay dhalanteed unuu xaggayga ka yahay xiriirkan adna waad ogolaatay haa laakiin adigana maanta oo dhan fiiri quraac iyo balaayaad diyaarinaysaa sidii inaad xaaskayga tahay mar walbaad iga soo horbaxaysaa imuuqgoy qof yahay intaan kugu dilqin albi waa ku baryaa istaag albi wax wanaagsan mudan albi wanaagsan maamule waxbaan rabaa inaan kaa codsado soo daa mudan dabcan waad aragtay qumayada aniga hadda ii timida qolkeeda joogtay haa mudane hadda kadib waxaan kaa codsanayaa inaadan iisoo fasaxin adoo wax amaraa iga haysan waaya mudane sidaa jeceshaa noloshaada adiga ayaa xaq u leh mahadsanid adiga mudan gabadheedu waa halkan dhegeyso waxba ka walwalinya waa huwa ku dhamaysa shaqo waad ka shaqaynaysaa waan rajeynayaa nakeenaya marka raali noqdo ilaa hadda maqaayadda lama furin iga raali noqo neeva jamboolaad ayaan ahay waxaan rabaa jiif inaan gacanyeer u noqdo laakiin aniga ilaa hadda warbixintaada ima soo gaarin yaa ku sawaca adiga ii sheegba haye su'aalahaaga miyaa mar kale bilowday anigaa wacay tamaam soo dhowownayba waan dhowaha waan ku salaamay shaqadeedaan qabsanayo qoftaan haddii booska la horgeeyo hadhowta muxuu dhihi karaan taas ma ka fikirta mise ma is weydiisay haye hayaal shimbirteeda run ahaantii aad iyo aadan kugu xiisa kaali is dhabanka haye ma fiican tahay laakiin shaqada walwala iska jirano haye shimbirteeda hadda hooyadaada ayaan wadaa adiga isii fadhiisoo kusoo laabanaa tamaam waayahay aniga dheera ku mashquulsanaa idinka orta waqtigan iska soo qaataa cabsanina gabadheedii hooyadaada shaqada allah fududeeyo ahay gabadheed waan kusoo laabanaya si fiican hooyo nayfa nakeen haye ma sii baxnaa aniga aad ayaan u walwalsanaa
maadaamaad i caawisay waan kaaga mahadcelinayaa farxad maya dhibaato ma lahan taas ma ogta haddii aadan adiga aan le meesha inaad imaada xitaa ku maryoon lahayn yaaqi waad ka badbadinaysaa gabareey maanta waxay nootaa anaga maalin muhiim ah okay weliba maqaayadda caawa martiqaasaa imaanayso beritone waa la furayaa ma fahamti waan ku baryaa arrintaas muhiimka aniga ha igu soo dhex darin isdeji wax sidaas u weyn ma jiraan anigana si fiicanaan ku aqaanaa tamaam xirfadaadana waa aqaanaa lagu daray howl badan markaa qabatayna dadkao dhan way ku arkayaan jiifka dibna waxoogaa yar waa nin la yaab leh waxay ahaataba hadda u tageynaa asigna waa jiifka dim ah kadib ergaasoo maahana